madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Maxamed Cabdi Waare ayaa dhagax dhigay isbitaalka guud ee degmada Balcad oo burbursanaa tan iyo dowladii dhexe ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa dhagax dhiga kadib khudbad ka jeediyay goobta waxaana uu sheegay in shacabka reer Balcad laga doonayo inay ka qayb qaataan dhismaha isagoo fariin u diray qurbo joogtada Soomaaliyeed si ay gacan uga geystaan. noo sharafa aniga madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle inaan dhagax dhigno isbitaalka weyn ee guud ee Balcad. runtii waxyaalaha xanuunka nagu hayay ka mid tahay in magaalada intaan la eg isbitaalkeedii oo burburay oo hadda aan dhagax dhigayno. caafimaadku waa saldhigga nolosha, waa saldhigga hooyooyinka, waa saldhigga carruurta, waa waxbarashada, wax walba caafimaadkay ku tiirsan yihiin. isbitaalkaas waxaan ku baaqaynaa dhammaan intii wanaaga oo ganacsataa oo deegaanka iyo deegaanada u dhow iyo xamar iyo ganacsatada Hirshabelle oo dhan inay qayb ka qaataan. annagu maamulka haddaan nahay qaybteennaan ka qaadan doonnaa insha Allahu tacaala, si toosana waa uga qayb qaadan doonnaa. deeq bixiyaasha iyo hay'adaha deeqda bixiyana waa u tegi doonnaa, laakiin annaga gacanteenna inaan isbitaalkan ku dhisano ayaana laga rabaa insha Allah. waxaa kaloo rabaa inaan ku dardaarmo isbitaalka dhisidiisa waa sahlan tahay, aad ay u sahlan tahay. maamulidiisa iyo toosintiisa iyo dayactirkiisa iyo nadaafadiisa iyo ka shaqayntiisa ayaa muhiima. taasaa loo baahan yahay in laga sii fikiro, laga qayb qaato. waxaa kaloo aan jeclahay inaan halkaan aan fursaddan uga faa'iidaysto in isbitaalka aan ku lamaani doonno muxuu ahay nursing school ama iskuulka kalkaaliyaasha caafimaadka si waxbarashada iyo caafimaadku ay isula socdaan. xildhibaan xasan maxamed xaaji oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle isla markaana ah shakhsiga u dhabar adeegay in la bilaabo dhismaha isbitaalka guud ee degmada Balcad ayaa uga baaqay cid kasta ee ku abtirsata degmada Balcad inay qaybteeda ka qaadato dhismaha isbitaalka degmada. waxaana uu intaa ku daray in ilaa hadda la soo gaarsiiyay in ka badan 50 kaariko dhagaxa. qodobka labaad waxaan rabaa dadkayga waxa ay ka dhiidiyeen mudane madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo guddoonka baarlamaanka waxaa idiin sheega isbitaalka degmada Balcad 50 kaariko oo qaarkood hadda iyo baabuurta la taagan yahay ayaa horta magaalada meesha taalo oo waxaha dowladda Hirshabelle waa wax cusub. haddaanan annagu istaakulaynin waxayna qabsanin gabadha hadlayso, hooyada hadlayso, walaalka hadlayo aadaan oga damqay. waxaan aaminsanahay waxa yaallaa waa 50 kaariko oo 5 kaariko ama 10 kaariko hadda ay taagan tahay. annagu waxaan jecelnahay halka doolar iyo nuska doolar dadkeena annagaa aamin iyo wax walba annagaa u ah waana naqaanaa. haddaan been sheegayna shacabka reer Balcad way wada maqlayaan. Cabdullaahi Maxamed Xasan, telefishinka Somali News, degmada Balcad, gobolka Shabeellaha Dhexe.